iyadoo maalmihii u dambeeyay xiisada ay taagneed degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sidoo kalena maalin ka hor ay ka dhaceen dagaallo u dhaxeeyay ciidamo ay kala hogaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa soo baxayay warar sheegayay in la soo qabanayo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga oo awood ku dhex leh degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana habeenkii xalay ciidamo ka tirsan kuwa amnigu ay tageen guriga sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka inkasta oo la sheegay inuusan ku lug lahayn dagaalkii ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir halkan oo ah guriga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir uu ka degan yahay gaashaanle sare Maxamed Nuur Masdile oo ka tirsan guutada 12 Abriil ee xoogga dalka Soomaaliya xalay waxa la sheegay inay soo weerareen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la sheegay in gurigan uu deganaa gaashaanle ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ciidamada amnigu xalay ay soo galeen kadibna dad badan ay ka qabteen haddaba waxaan rabnaa inaan wax badan ku ogaano dhacdadii xalay ka dhacday gurigan waxaana gudaha u gali doonaa guriga inagoo sidoo kale wareysan doono dadkii guriga ku sugnaa xilligii xalay ciidamada amniga ee dawladda federaalku ay soo galayeen waxa anagoo iska jiifno oo dad dumar oo guriyooda iska joogo oo wax dhiba aan wadin aan ahay oo ilmaheen iska jiifaan gurigna oo lagu yimiday بعدين وانا لهنددي غريان ugu la xiray telefoonadii waa naga la qaatay qalabkii guriga noo yil alaabtu waa kana cadeen waay waa naga la burburiyay waxna loo reebtay habeeraatay ma jiraan nimankeenina guriga iyo walaalihiina la joogeen waa naga la kaxeystay ayagoo dad shacab iyo dad askari isugu jiraan gurigan waa guri sargaal oo inuu leeyahay la og yahay baadii lacag aan ugu heystaa ninkayga waa la kaxeystay meel loo kaxeystay ma qan xal oo dhan waa soo jeed labadeed indhood wallahi inaan isaarin saaki saldhig yaa ku dheelmada saldhig meeshan laga xukumo degmada Kaaraan deganna saldhig laga xukumo markii aan tagay wax jooga ma lahana leegu yiri meel loo kaxeystay ma aqaano xalama aan ko jifno aan nala soo qaraacay albaabka waan nagala furay ilaahay ku inta hadii albaabka nagala furay anoo jif asiranta leeyo soo turaan madaxa waxa laga marshay filatuur waa lagu rabiyay xanay qabana shacabaaska iyo maana isku joog jiray waxa shaqal lagu ku duraan muugan mana la xirxiro walaalahayga maqan laba wiil oo ila dhashteen xoogooda u shaqaysteen waa awlaad laba wiil oo agoon ah ilmahooda u shaqaysanayeen xoogooda maalanayeen guriga la soo galay oo macnaa loo soo dhacay guriga ka soo horjeeda deganayn dhalinta meesha sheeko u soo aaday waa la watay waxaana la dhahay saldhiga Kaaraan la geeyay saldhigi hadaa tagnaan waxaan dhahayn ma hayno ilaa al'aana cirib iyo jaan meel ay dhigeen ma haysano in qofka guriga intay limaado ya sidii qof burcada gurigeeda oo wax dhacday ama wax dishay in gurigeeda la jibso dagaalkii halkaan ka dhacay maalin dhaweed na inuu sirraad ku lahayn haba yaraatee waa la og yahay dadka yani ma taqaana dawladda ka warqabto oo og inaan yani Maxamed Nuur oo san xabad ku lahayn fala oo ku jiray kala dhicinti dadka calaamada sita oo kamid ahay waxa og dadka gacmadullah og waxa og ninka leeyahay Qafow waxa og ninka General Qafow waxa og yani ma taqaana saldhigan ninka haysto oo qod ka dhicinaa dadka liibaan shidane qof ma jirto in aanu ninkan ku jirin dagaal oo san dagaal gelin dhacdadan aan ku soo baxnay ma nihin dad abaabulaya propaganda iyo waxaan jirin dad abaabulaya ma nihin waxaan rabnaa markaa cadaaladda inay shaqayso inaanan falalkan oo kale oo lagu beegsanayo saraakiil gaar ah dawladdu waxa waaye inay wax ku dheesho maahan arrinkaas wax ku dheesho maahan waxba ma saxayso sarkaal hadda gurigiisa la weeraray asoo guri kala jira lagu weeraray xaasaskii guriga u deganaa caruurtii deganeed la dhibaatiyay wax walba laga filan karaa annagaana xaaladda sadda gacanta ku hayna dhinaca kale gaashaanle sare Maxamed Masdile oo ah sargaalka la weeraray gurigiisa laakiin xilliga weerarka uu dhacay ka maqnaa guriga oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay ayaa sheegay in wada aan sharci ahayn loo maray weerarka gurigiisa wallahi ma gara karo saaxiibo wax qasbi kara aniga talis leeyahay xukuuman lahayn hadii aan hawaay eedaysana nahay in hawaay intaliskii hawaay dacwad laga gudbiyo maxkamad laga gudbiyo intaba hadii aan taliskii hawaay aan ka diido amar waaran waa la soo jari karaa waana la soo aadi karaa markaas sida aan ognahay in hawaay guriga waa la soo aadi karaa waa laga soo dooni karaa hadii sifa sharci la soo laakiin marabaan sharciga gacmo hore ku wataan ayagoo dana gaar ah hawaay maaragtay iyo dulmi iyo hawaay aan ku tagrifal mas'uuliyad iyo awood mas'uuliyad uga ayagoo adeegsanay ay dhaqamadaas ayantay ka wadeen hawaay hadda waa
way la soo galeen xaway nidaamkaas waa garta warar baa sheegaya in dagaalo degmada ka dhacay aad ku lug lahayd ka waran arintaas waxa shaqaa kumadi waxa la warsa karaa taliska laga xukumo cid kasta ayaa la warsa karaa duubabka iyo mas'uuliyiinta joogta eriyada uu dagaalka ka dhacay wax shaqaba yaraaday oo shaqaan ku leeyahay inaan ka qayb qaado iska dhaaf dagaal xaway ana ka xumay oo markii dambana xaway u soo istaagay aniga iyo saraakiil sarsare oo sareeyaal ay ku jiraan Abuukar Dayax warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE